النبي وحي صلى الله عليه وسلم ولا تمهل هأكادن صدقة إن أدبلك في إسكده حتى إذا بلغت الروح الحلقوم إلى النفط أي قارتك الحمها هأكادن مركيك الحمها قارتنا محل هذا قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا مركاسنا آتي لا يهدي هبل انت سولية هبل انت سولية هبل انت سولية هي مركز النبي يقول ألا هوي براروغا وقد كان لفلان مالك آقايمين إيسا مركز هبل كأن لذا انت سولية كابر يميوه هذا يبا نحلبو بكوه ليبا وحاو باهانت إنا قيبيسيت والله أقبل يما اللي ينقفكم مركا إيضا وأولي هبل انت سولية هبل انت سولية جيريد أي كسو حاضرته warkiisu wax macnaa ma leh qabadna ma leh xoolahan dhaxal bay noqonayaan qofka ilaahay siiyay baana qaadanaya umana dardaarmi kara suura oo marka iyada ah soo ma jeed hal sugin baa nabi maxamed ku leeyahay calayhi salaatu wasalaam xilliga hal sugin bal nabiga fiiri calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma yasuruni ma ifarax galinayso أن لي أحدا ذهبا إن بورت أحد أو ذهبا إن يسقناته وأنو أن ملكي أي تانو أن ليا تأتي علي ثالثة دو الشيطان أي صامر تهبين كي صدحات وعندي منه دينار هل دينارنا أنك هايسته ما كفرحين إلا دينار أرصده لدين علي marka laga reebay hal diinaar oo aanu baaqi yeelay deyn leegu leeyahay inaan ku bixiyo ma ku farxaya baa nabi sallallahu alayhi wasallam in buurta uxud oo dahaba aan leeyahay oo milkigayga khaaska ay tahay saddex habeen ay soo marto oo saddexdaas habeen hal diinaar aan ka hayo ma ku farxayo illa diinaar deyn leegu leeyahay aan u dhigay mooyaan kulli waa bixin lahaa nabi sallallahu alayhi wasallam bixin lahaa سو مجد محو النبي عليه الصلاة والسلام سأل ليه في قضاء يكلسوني ذا إلهي أكتي سوكو قبو يا إيمانك إيا وحويان الدنيا ذو وح معنا إننا اللهين بلو فرس إلهي نمحو كلية حديث القدس يا ابن آدم أنفق عليك ابن آدم وبحي أنكسية بالله ويلو قاض ابن آدم وبحي أنكسي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه باوحي النبي قانو يمت أسوغو النبي كعبة هوس كذا فردية مركو ياركيب وحي هم الأخسرون ورب الكعبة هم الأخسرون ورب الكعبة إلهي بان كدار تدي رب الكعبة ان كدار تدي كوا خسارة بدن وأيجا كوا خسارة بدن markii nabigu sidaa ku dhaartay ayaan anigi dhamaan murug baa dhameeyay waxaan isriibu yiri nabigu muxuu ka arkay oo leeyahay wal ilaahay baan ku dhaartay waa ayaga weeye kuwa khasaarada badan oo khasaarada badan waa ayaga muxuu nabigu ku arkay markaas aan umid waxay rasuulka ilaahay manhum dadka aan leedahay kuwa khasaaray waa kuwaas ilaahay baan ku dhaartay waa kuwee markaas nabigu yiri al aktharuna amwalan waa kuwa xoolaha badan ilaahay baan ku dhaartay kuwa khasaaray waa kuwa hantida badan illa man qala hakada wa hakada wa hakada illa qof yiri hantidii badnayda uu haya saatan iyo saatan markaas nabigu yiri min bayna yadayhi hortiisa ku bixiy ومن خلفه جدال كيسة وعن يمينه ملك تيسة وعن يساره بدحيسة هرئي الجدال إنع والبقص صيري أو بحيي مويانه إلهي بان كدار تدكوا خسارة ضبضن وكوا هانتي ضبضن مركز النبي يقول وقليل ما هم انت أيهين كوا صاء بحنيانا ويريهن عدد يرمي بلوفلس وعدد عدد كهانتي بدن إلهي سيي oo midig iyo bidix u sayranahay oo bixina
tusaalaha bal fiiri ilaahay markuu soo dejiyo lan tanaalul birra xataa tunfiquu mima tuxibbuun ma gaaraysaan samafalka iyo khayrka weyn ilaa waxa xoolaha aad jeceshihiin aad wax ka bixisaan hantida aad jeceshihiin markay aayadaasi soo degtay Anas bin Malik wuxuu yiri Abu Talha wuxuu ahaa magaalada Madiina oo dhan ansaar ninka ugu xoolaha badan buu ahaa xoolihiisana wuxuu ugu jeclaa beertii Bayraha la oran jiray Bayraha Biraha waa luqooyin kala duwan dhowr magacyadeeda wax weey dabdigeeda dhowr nooc ay ku timaad beerta Bayraha la yiraahdo ayuu xoolihiisana ugu jeclaa bal meeshay ku taalo istiraatiijiga fiiri masaajidka nabiga soo qaabilsanayd calayhi salaatu wasalaam waa meeshii magaalada centerkeeda ahayd markaasaa nabigu markuu baxo oo masaajidka baxo beerta gali jiray ceel baa ku yaalay aad u biyo macaan nabigu biyahaas ka cabi jiray calayhi salaatu wasalaam beer aad u weyn badan oo hantidiisa ugu jecel yahay ahayd meesha buqcada ugu qaalisan dhulkana ku taala masaajidka nabigana ka soo horjeeda calayhi salaatu wasalaam aayadaas markuu maqlay ayuu markiiba dhaqaajiyay oo nabiga u tagay saacisan markaas yaa rasuulallah inna allaha ta'ala yaqul ilaahay wuxuu leeyahay fi kitaabihi lan tanaalu albirra hatta tunfiquu mimma tuhibbun saasa ilaahay soo deji wa inna ahabba amwali ilayya bayraha hantidaydana waxaan ugu jeclahay ilaahay isiiyay beertaas wa innaha sadaqatun lillah ilaahay dartiis baan u sadaqayst arju birraha wa dhukraha 'inda allah beerta birrigeeda khayrkeeda iyo kaydkeeda iyo dakhligeeda dambe ilaahay agtiisaan ka rajaynay oo kaga ajir xisaabsanay fadhaha ya rasuul allah haythu shi'ta rasuulka ilaahay oo adigu maamul meel alla meesha u garatidna dhig oo ku maamul meel alla meesha u aragtid dhig markaasaa nabigu uga marxaati kacay sallallahu alayhi wasallam niyada wanaagsan bakhin luqada kale waxa weeye bakh oo qaada la reebo bakhinna waa sax waa kelimatu ta'ajjub kelimad la yaab la weey macna arinka la yaab kale ayaa nabigu bakhin ku soo dhaweynay dalika maalun raabih wa maal ribhay oo saaxiibkiisa uu faa'iiday oo darajo sare ku gaaray weey nabigu laba jeer ugu celiyo calayhi salaatu wasalaam markuu yiri maalkaagi waad ku guuleysatay waana maal ilaahay agtiisa darajo sare aad uga gaartay waana ribix xaqiiqadii la rabay aad ku gaartay ayaa nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa inni ara waxaan arkayaa anugu ra'yi ahaan an taj'alaha fil aqrabin beertaas maadaama waqaf ay tahay oo aad sadaqaysatay qaraabada inaad u yeeshid oo qaraabada adiga dadka kala ah aad u qaybisid markaas oo qaraabadi u yeer markaas u qaybi kuwa qaraabo fag odaga toddobaad ay iskugu yimaadaan sida Hassan bin Thabit oo kale ayuu wax ka sii odaga toddobaad ay iskugu yimaadaan ayuu beertii u qaybshay kulligeed waa qaybshay soo ma jeed xadiidkaas laba macne oo waaweyn baa ku sugan macaani badan buu leeyahay laba waaweyn baa ku sugan marka koobaad qofku inuu isku dayo waxa hantidu ugu jecel yahay inuu ku dhiirado inuu gooyo wax kamida ilaahay dartii u bixiyo arinka labaad waxa markuu bixinahayo inuu tashi ka sameeyo oo meesha dadka ahlu khayrka ah oo wanaaga iyo khayrka oo ku tuhmahayo inuu kala tashado meeshii uu dhigi lahaa ee uunan intuu bixiyo meel asaga la qurxoon iska dhiga hadhowta aan la dhihin maya meeshaas faa'iido ma lahayn bal dambi baa ka xasilaya meesha geeysa xoolaha ee inuu dadka ahlu khayrka ahlu cilmiga kala tashado sadaqadan meesha ku haboon oo la dhigo midda kale inuu qaraabadiisa u qaybiyo fadliga ay leedahay arinka isaga ah وين لو قال نبي عليه الصلاة والسلام
وحجر من تصدق بعدل تمرة هل تمر وحدق ما قفكي صدقيسته من كسب طيب كسب حلال أو طيب حق اسمه كصدقيسته والله لا يقبل إلا طيبا إلهي ما أقبل وحن طيب أهين فإن الله يتقبلها بيمينه إلهي ما كو قدومية أدونك اللب حي صدقها طيب كأ يمين تيسو مدك تيسابة إلهي كو قدومية فيربيها لصاحبها مركز إلهي أبر ثم يربيها لصاحبها كبعد ما إلهي أبر بارنا يا هلك يحبه أو صدقيستي كما يربي أحدكم فلوه سيدا متكين أبر باريو وأكريو المها يركع أو فرس كؤور دلي سيدا الدياريو أكرنا يأبر بارنا أيو نيف كجيل علمه ساكله أي إلهي أبر بارنا يا سبحانه وتعالى حتى تكون مثل الجبل إلى أن تيوينات بورتو كلا أي نقط بورتو كلا أي لعكات أي إلهي أبر بارنا ووحية أو حلالة أو طيبة وإلهي درت يا أصدق قيستي أي هيرك إلهي كو قرسيني يحيى بن معاذ باوحو ليه شري ما أعرف حبة تزن الجبال إلا من الصدقة ما قرنا يبو ليه شري حبض مرأة وإنتي ويناتي بور لأكاتي وبورها أقول لك إلا بابك صدقة إن لقاه لما يعني مالك لأقرن معي مالك لك قرن قفك متصدقة أو مالك يسبحيا مالنت قيامها وحا إيمانا ينكي عالمك علمك يسيب الله إيمانا وحا إيمانا ينكي مجاهدك جهادك والله إيمانا وحا إيمانا ينكي صائمك أصو مناصونك والله إيمانا وحا إيمانا ينكي متصدقة أو وحلا بحجر انتاس أجرك هلين بقادني كان جهادك كتير جهادك أقولك المية مالك يسكب بحيي جهادك يقول له ذاكسر نين كان عالم كابو علمي يقول نشرنا هيبو مدارستي الدروستي يضدك طلبة العلم هاي كتبه وحلو برنا يبو كمال قلي علمي أجرك يقول له ذاكسر كي صائم كها صومن أيو أفريي أجرك يقول له ذاكسر وحي كديراد أسوي لي ماذا جهاد حقه وكون شهيدي أهئي وحي علميه ولي ما وديراد لكن أنت سمرك يمادان متصدق مالكي سأنت أديك سدي أجر كودي بالله مشاركين يا ولو ذاك سنة عبد العزيز بن عميرة حديث الصلاة تبلغك نصف طريق صلاة تكنيسا وحي كغارسينيسا ودada kala barkeed والصوم يبلغك باب الملك صومكنا وحي كغارسينيا إريد بقرك والصدقة تدخلك عليه صدقتنا إريد gudahay ku gelinaysa boqorkay ku gelinaysa soonkii salaadii oo ku soo dhawaatay sadaqadiina gudaha ku gashay soo ma jeedo al-imam ibn al-qayyim wuxuu yiri sadaqada qofka waa looga xijaaba balaayo ayaa looga xijaaba ibn abi al-ja'dina wuxuu yiri 70 baaban min as-suq toddobaatan albaab oo xumaan ah ayaa qofka sadaqada looga xijaaba toddobaatan irdood oo ku furmi lahaa oo xumaan ah oo musiibooyin ah ayaa ilaahay sadaqada uga xijaabay bal al-imam ibn al-qayyim wuxuu yiri hatta min adh-dhalim aw al-kafir sadaqadu haday ka timaado qofka gaalka ah iyo qofka dhaalimka ah fa inna allaha yadfa'u anhu biha kathiran min ash-shururi wal-masa'ib